dalbo Little taxi raaxa leh oo ku hel muddo ka yar 2 daqiiqo. hadda kala soo deg Little Play Store-ka iyo App Store-ka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga adna leedahay waxaan ku noolahay Sweden. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xiriir fiican aniga asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay. حبي أبو أنت هذا إلى هذا نيكي حرسي يا محمود تبع سنين متابعيها حبيبتي أبي قال هذا هو والله الله لكن أرين كلا قولي كتاعن أو حلو رادنا أيوه لكن هذا الكادو حقوق يقف مسؤوليتك عن الراي استري ما يا حبيبتي ساس معها هورو ما تقول كل أبطال أنت سوق هذه هورو نومو أجي سو عفماتك هذا يشكي نولش هذا جيف كذا أنت هذا فرد هذا سوا والله يا حبيبتي حكوا ولا شيء ما جرو قولي هو اللي جوجا قولي ولي جوجي جري قولي أقصى بربارة جوجا سو هذا الاستر أم بهند غير كذا كل حجرتها قولي هذا جوجتها سمعها لا حبيبتي وقتي أساس عليه وقتي قف بوسكا يبو هنا يا ما جرو وأوي خف بوسكا يبو هنا نسجل استر حبيبتي ديار موت أنا قدبان قاسي بخلو وسوقي لا هاي إن أنا نرشين أسلب بلابنا عند إن هريرك هذا بتد هبون أبايا هاي سيدي tahay muddo 30 daqiiqo waliga qof meel uma fadhiin dad ma istii karaan gabadhan waa laga soo daayada jaceylka horeeyaan maxay u maleynayaan labadeenna sukaansanayna waliga gabadha meel isla fadhiyaan maxaa kale loo malay karaa waa la socotaa Soomaa warkiisiba maalin hore akhbaar fiican ay sheegto waan ku farxay arintan ku sheegay qof ama u sheegtay leh maya maxay balnaaba ka qaadmo Jamal mis maqasheen telefoon ba igama qabanaa aniga garanay sabab telefoon uu kaga qabanayn maxay tahay sababta haboon meesha ay joogtay ayuu ogaaday haboon meesha joogto ogaada xagee joogtaa intuu ka helay haboon aniga ila joogtay سوير أبوه أكبر يا كفتن كي قدافنو جمال هبون مو هلاي ما والله كفتن معهم هبون أنا جاي هاي حكي كويسة قولي هاي ما حكوا هذا هبون هذا كسر مو نخذه ها حاول بوي شيكت أرنتنا ماشي سكسر دباتيبه معقول ما أهلا سيدا كل حكي لكن سنان أي أنت وين وحسمي ما أخاني ميلا وحكي بلاو وحرون أي وحبين حتى بكل أخاني أنت كتب اللي هو هذا رنتي هسا ما نكذب إن بينكم شيء كرتابون وحكو ما جرى مرضي والدين تيسكي كيسو طورين كوا والد كان معهن والدينتي أنا تحت ويسوع تورين محا فرقي أقول لها يا مركب خذ بني آدم ويرمون ملان حبوني يدخل وشك معنته جمالكي عجلان وحي يقول نعي مادام أنا غيركي لا أخون سواي dadki aan jirsanahay dhan meel codlay soo dhigeen bas waa laakiin qaybtaas nolosheeda ka soo dhawaatay marxaladan waa ka gudbaa reerkayga ma laga yaabaa inay nool yihiin magaaladan lama wada dhiman lama wada noola
waaye intaan u raadiyaa reer aniga jiritaankooda xataa aan waxba kala soconin. habboon weli waqtiyaa haysanaa tan waa bilow cusub. ma laga yaabaa ayaga inay soo raadiyeen ma i rabaan inta igu og yihiin. su-aalahaas oo dhan jawaabahooda waxaa heli karnaa markaa reerkaaga helno. intee wax ka bilaaba ahigo inaa nasatid oo kasoo dhawaatid gurigeena taxbaaniska markaasaa baada goob galeynaa garabna waa heleynaa. xabtay kasoo dhunta bilaabyo ma aqaan qof yaqaan oo in la helaa. aniga og qof yaqaano laakiin marib uu jeeyay inaan horkeeyo. waay habboon familkaaga sa u heshid wax walba waa inaa u sameysaa. ay macaantayda aamus barya oon macaanto maxaa daranood oyeysaa? waay habboon way soo wacday wax kastana way i weydiisay wixii jira. fariiso bal. adiga yaa ku dhaha sheeg sirta dadka u qarsooneed? hooyo ani ma sheegin bas waxay ii soo wacday inay iga xaqiijisato. hadda ma noo qabtaa habboon? haa way nabad qabtaa. haddii ogaato maxay samaysay wax u jiraa marka? maxay sameynayd hooyo maskiintu iska ooynaysa qalbiga ay xanuunjisa. adiga hoo wax dembi ku malay taas waayo arrintan 20 sano qarsaneed. laakiin ani saaxiibtay ahayd soomaa way aamintay. runta laakiin haddii arrintanba lasoo bandhigay waxaa laga rabay reer ducaale khaasatan oo ducaale iyo amar inay soo bandhigaan. haddii laga ogaado cidaan ayaga ahayna dhib kale keenaysa oo hor leh ee habboon u sheegay. ma aqaan laakiin waxaan u malaynaa subeer inuu u sheegay. ma balaaya qabiil guriga gabadha ku qarinayo lagu jiilay. haa balaaya ku dhacaas hadduu ogaan lahaa dhibka uu noo geystay gabadhiiba sii dheereey. hooy hadda habboon ma soo laabanayso miya? hooy maxaan ka ogaa waayahay? waayay ciddaada adiga ma ka warqabtaa? habeen reerkeeda cid wax ka ugu jirtaa beeraatee markay yareedaa la baafiyey wax ka soo jawaabo ma arag ilaa haddana sidaa lagu aaminsan yahay. kowdhe reer ducaale anaa la warramaayo adigana baxaa iska seexo albaabka hore igu sii xir. waad ii sheegtay jamaalnaad jeceshahay balse aniga kuuma sheegin habboonnaan jeclahay waa sabtad igu aamin laada. waxaas aniga ma aaminaayo. habboon meelay joogto miyaad ogaatay? habeenii maalin ay jamaal habboon la raadinaysa waxaad sheegaysana suurtagal maaha. waa runtaada anigoo og habboon gurigayga inay joogto ayaan bannaanka raadinaya. qorshahaaga muxuu ahaa? weligeyba waan rabay habboon maadaama uu labadu xiriir u ka dhexeeyey waan waayey fursadaan ku shukaansado way soo raadsatay waan caawiyey fursad ayaan raadinayay aan ku hel ayada. jamaal hadduu ogaado maxaa dhacaya? jamaal uuba ogaaday gurigayga inay joogto guriga ayuu tegey ayadana guriga way ka tagtay. hadda labadeenna way naga wada maqan tahay habboon. hal ixsaan ii samee jamaal gacanta ku dhig habboon aniga waan heli doonaa. ilaan waxaa iskaga kay dhigaysa qof i caawinaayo adigaa dantaada wata soo maaha. labadeenna waa inaan isfahanaa hal dan ayaa naga dhexayso. jamaal gacanta ku dhig anigana habboon waan heli doonaa waana calfan doonaa. markaan haddaa gacanta ku dhigto yaaba la ogaan. inaken gurigaada ayaan kusii geynayaa aniga aabba habeenadan wuu u kacsan yahay inaan dhaqsadaan u baahna.
ducaale gabadhii habboon ahayd idil ila soo hadashay haddayd habboon ma nabad qabtaa oo habboon caafimaad qabtaa walaashii habboon waayahay aan wax idiin sheegna warka naga sugo waayahay bal noo wad waxay sheegtay meesha ay joogtay inay ka wareegtay haye waxayna tiriyaan la ii walwalin oo xaggee u wareegtay marka layima sheegin teeda kale habboon wax walba way soo ogaatay maanta kadibna wax caad ka saaran ma jiraan walaashii habboon caadka ma saaranta xaggeen aadi war sug bal saas maahana oo say ku soo ogaatay waxaan kolley way soo ogaatay muhiim maaha siday ku soo ogaatay waryaatan oo kala arkay waa ka daroo dibi dhalay kolley hadda wixii ka dambeeya dadkay noola siman tahay habboon aday kuula siman tahay maahane aniga marna ma ila sinaanayso kuwaanaan dhalay ayadaan ka jeclaa weligeedna hadal xun ima dhihin anna ma dhihin ducaale habboon aniga intaas la soo ekeysiiyey waxay tahayna anigaa ka dhigay inaan intaas dhan la soo ekeysiyaad laakiin adiga hilmaamsan tahay maanta say tahayna adaa baday adaa ka dhigay ee sidaas ogow adiga haye caawinaad ha iga sugin aniga jamaal isma arkayno shaqadaada qabsahee hawshaas aniga ii dhaaf habeen wanaagsan good night Zero very different is the fact that it understands that diversity is more than skin deep. It's a diversity of voices, it's a diversity of perspective. A different way of looking at stories. We will still be looking at all the difficult stories, all the tough news agendas, but we will be approaching it from a slightly different way. Our job will be to go behind those glossy headlines Salma. and take a proper look at what's happening faa'iiza kaniiniga ha ii keento madaxa ay xanuunaya whether it be the Middle East, Africa, the Americas, the Far East and Europe. So the opportunity and responsibility we have as news journalists to bring those stories to our viewers in a Salma, concise, maxaa dhacay informative aabbo? and creative way just cannot be underestimated. aabo waqta iga daaytay iPad-ka ku sakeeya jeesaawe iPad-ka waa kuu keenaa ballan waaye qolkaada aad ani qolka fadhiga u socdaa haye abo ayaabo sidee tahayna
madax maa zaid ku xanuunaya ها aabo habboon way la soo xiriirtay fariin oo ii soo dirtay aabo qalad ayuu naga dhacay mar kale uma laabinayay maqabliis ku baryaynaa macaan iska keen caf waa qaldanne dambe qaladkaan oo kale uma laabanayno عرسي شقة هذه الثانية طول السعودية فريسبل وحير يورنا بسيته ما شاء الله وحيانا هو يا حالي ورق يقول طابت ما حكى جرى وركاس أبانا هو يوش يا جاي أي هاجرت قبر أسبوع سنة أنت قولي كم أقنع أي marka hadda ay joogto guriga reerkeeda joogta waxa lagu sugayaa inaan meel geesto waa gartay adinkan oo naas aragtiin waaye aba dib ma leh reerku waa isbaran doonaa maxaa ku qorshaysan adiga baliisha wallahi sa ogtahay hadda shaqo bilooway waxbay ma qorshaysana qarash la'aan jiro marka waxaas dhahay ma guriga dhinaca ka dejiyo waa gartay gabadha ma kaa ogolaatay teeda kale waa ogtahay hooyada qof aad u kulul waaya gabadha iyo reerkeedaba wax isma weyno waxaa rabana igama diidayaan waa gartay waxaad yeelaysaa bal shaqadaada iska aad waa ogtahayna aniga beryahan habboonaan ku mashquulsanahay arrintaadana arrin aad muhiim u ah waaye iska shaqo tag insha allah yaa subax wanaagsan aabo subax wanaagsan aabo intee u socotaa xafiiskan socdaa maa quracad maanta qurac maro jamal wax tallaabo aad qaadi kartid malaha arrintan anaa ku jira anaana ii dhaafaysaa mii garat dhalinyaranimo yay ku qaaday insha allah waxba ma sameynaya waa balan فايزة يقرأ على النقو شلي سقلدنا كلها هلا واحد نقصنا هذا واحد نقصن قفله مين هذا هذا أنا واحد ربتد إن لسكده ما لقيته وارنتها لكن أنا وحبة لما سعني sidoo kale adii sawirna walaalo tihiin daraad ka hor ma ogeen aniga badaan ogaa lahaa gabadhaas gurigeena ma sii joogteen laakiin Zubeer been ayuu ii sheegay haye Zubeer muxuu kale kuu sheegay ma kuu sheegay sababtuu saaxiibkiisa u khiyaanay idil inaad raalgelismaad u timaade mise inaad wax iga ogaatid inaan ku raaligeliyo sidoo kale inaan kula sheekaysto labadaba waan u imaaday raaligelintaada waa kaa aqbalay hadda buugaan akhrisanayaa marka la sheekaysanayna waa mahadsan tahay waa kaa sii tegayaa allah mahadle marba haddii gabadha warkeedii la helay waxaana la yidhaahdaa geesinimadu waa in yaroo aad lugaha dhulka ku xajiso
shalay arrinta si midhaha bardahaynu duuduub ku liqnay mar haddaad warkaas noo keenteenna waa aad baan ugu faraxsanay waana soo dhoweynaynaa walaalkeeni xaaji nuur soo sheegay waaye alla aamin ma iisho ilaahana furtay mahad oo dhan ilaahay baa leh nin oomanna waxaa deeqda biyahan hoo oo keliya marba haddii gabadhii warkeedii la helay nagu filan aniga waxaan markhaati ka ahay inaad tihiin raggoba marka loo fiiriyo xaajada sidaad noola dhaqdeen waxayna muujinaysaa inaan nahay dad aad isugu wanaagsan oo weligood is yaqaanay oo muddo dheer deris ahaa iyo degaan wax kale oo ii haray ma leh inaan idin idhaahdo waa mahadsantihiin maahan ducaalo waa idinka qabnaa idinkana waa mudan tihiin wax isweydiis ma xuma wax isweydaarsigaa xun si wanaagsan ayaa wax noo weydiiseen nagana sugteen intaas walaal fiican un baa laga helaa waa sax waay waxaase ii dheer waa tii shalay wiilashu ay isu gacan qaadeen wiilkaygana waa nin aad u degan oo iga ballan qaaday wax dhib oo dambe inuusan geysanaynin cajiib cajiib ka waran waxba kama ogeen inuu gacan qaad dhacay waa khatar weeye gabadha keliya inaan ku mashquulno ma aysan hayn gabadha keliya inaan ku mashquulno ma aysan hayn arrintaasi waa arrin dhibaato weyn keeni karta odaygeedii oo marba haddii wiilashii ayna waxba isgaadhsiinin waxay sheegteen oo dhibhayna uuna jirin waxaa ila qurux badan inaynu si fiican ula hadallo arrintana halkaa aynu dhigno waa saas waaye aniga kolley wiilkayga wax dhiba ma sheeganaynin arrintana waxay ku fiican tahay inaan aniga iyo samantar si hoose aan u wada galno oo ugu kuur galno insha allah oo kheyray ku dhammaanaysaa alxamdulilaahi weye arrintii waa noo fududaatay meel fiican oo maaragtay aan rajaynayna ilaahay inaan ka helnana waa joogtaa markaa faatixada aan maranno بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نقر له الوحي فرحك حن كانوا سودايحين قرية كلو جوجو في حاول إنه ما لا فيرنا عجائب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ويلكي هاي سك عليكم السلام عندنا السلام يا مفان أنت ما السلامة أنا أيد احترامي أنا قد أحسوي أحمد واجا يردوني كلون ديال غريجير نهاية ويلك ساس محاولة هي صعب واي حوري أنا أستغرب هاي أدم حكا فلانة وراني وحكون فلانة معانا قد كسير كسير يا رد أيوة الحالة ده حور معنا في الله الحمد لله ما شاء الله سات هذه صبر كان قارمو أهم خانة صور كان مفوضة ها سنة سكول كنا قدام بسوا هيبا يركا كل شيء واي حوري هذا الشيء مفروض بدي أعطوك كل خبصة على هالدنيا ما يبقى اسمك كل راسك بحانة هذا السلام وكاخد سوف اسم جرت مياه gabadhaan wajigeeda waa igu yaallaa abaa xagee ku ark maya buu hore ma isku arkin maanta isku keen horeys axmed gabadhaan aan ku baro waa saaxiibtay iskuulka magaceedana haboon aan lahaa haboon barasho wanaagsan ana axmed yaa lahaa barasho lamid ah iyo warkiisii war maayo walaa saaxiibo maxaa haysaan wallaahi axmed joogiya عيب يا أحمد ده كانت لكن حشو عيب أحمد